هذا كدب كلنا كان عينو ما تسكون نمي وحكوا صابصنا HIV AIDS awarenesses ووعيقلينta HIV AIDS sidaan ognahay cudurka HIV AIDS waa cudur saameyn fara badan ku haya dunida iyo dhibaato aad u weyn waa cudur dadku sida ay moodayaan si ka duwan ah oo waxa la yiraahdaa cudurka HIV marka uu soo oo AIDS ka keeno qofka hadduu daawadiisa qaato wuxuu la noolaan karaa in badan ama wuxuu noolaan karaa inta noloshiisa ka hadhay marka inagu kulanka wacyigelinta inuu qaban maanta ujeedkiisu waxa ahaa bal dadka inaynu uga faa'iideyno qaabka iska ilaalin lahayn dhibaatadiisa iyo waxyaalaha uu ku faafo iyo waxyaalaha uu ku faafin sidaan cudurka wada ogsoonahay dhamaanteen ama wacyigelinta lagu soo jeediyay aanu ka dheehanaynay cudurka wuxuu ku faafo waxyaalaha ku faafo waxa kamid ah kow galmada marka galmada laga hadlayo diinteena marka loo eego inta badan galmada xaraanta aan baynu focus ka saarnaa laakiin se galma kasta waa noqotaa sida darteed waxa loo yiri qofku waa inuu protection isticmaalaa qofku waxa rabaa dadku inay ku wacyiyo galmashaan oo ku baraarugsanaadaan laba qof kasta oo nolosha ku midoobay inta nolosha ku midoobay ka hor inay baaritaan sameeyaan oo midba kale caafimaadka la socodsi aynu uga hortagno cudurka iyo ogaano fiditaankiisa waxyaalaha kale oo ku faafo waxa kamid ah dhiig oo la isku shubo qof cudurkii qaba in dhiigiisa lagu shubo qof kale waxa soo raaca hooyada uur kale oo cudurka qabta oo ilmaheeda u gudbisa xilliga dhalmada ama xilliga waxaan dhahaa xilliga uurka ama xilliga naas nuujinta waxa kale oo kamid ah sananjiga ama saligayaasha ama irbadaha la qaato oo wasakhaysan oo aan si fiican loo nadiifin waxyaalaha uu san ku faafo cudurka waxa kamid ah koow cuntadii taabashadii iyo waxyaalahaas oo dhan oo la midka wax uu ku faafo ma waxaan ka rabaa marka inagoo la socona cawaaqib xumada deegaanka iyo inuu deegaanku uu yahay xarun transportation ama safaradu ay u kala gudbaan oo deegaankan ay aad ugu soo qulqulayaan waxa la yiraahdo Ethiopianka ama cross border Ethiopianka inuu ka digtoonaano si aynu caafimaadkeena la socono iyo caafimaadka bulshada waqooyi bari gabi ahaanba hay'adda FHIDska anigoo matalayo agaasimi guud waxaan u sheegaynaa qof kasta inuu ka buraagsanaado dhibaatada uu leeyahay cudurkani iskana ilaaliyo waxaan si gaar ah u sii wacyigelinta u sheegaynaa